السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موناليزا وصور سمي ليوناردو دافنشي كان من اللوحات فرشحمد هو عن سندونيدا waxaa ku booqda looxa sanad walba 6 milyan oo qof farshaxanka wuxuu ku kaydsan yahay madxafka loo firay ku yaala magaalada Paris ee dalka Faransa. Mona Lisa waxa ay indhaha caalamka soo qabteen qarnigii inaga tagay ee 20aad. haddaba su'aasha taagan ayaa waa tuma Mona Lisa waa sideedadeeda sirta ku duugan looxa Mona Lisa waxay u laabanaysaa fikirka looxa Mona Lisa in la sawiro inuu Florence Francesco taajirka ganacsada xiriirta inuu Leonardo da Vinci u xil saaray inuu u sawiro ooridiisa Lisa Gioconda si uga dhigayaan gurigiisa dhexdiisa oo ay isla waafaqeen tagay ooridiisa una dabaaldegayaan dhallaankoodii labaad ama gurigooda cusub oo ay riwaayad kale sheegay 1503 miilaadiyada waxa uu ahaa Leonardo da Vinci mid ku hawlanaa sawirada farshaxankan ilaa uu gabagabeeyay 1519 miilaadiga waxa uu qaatay looxii dalka Faransa si uu u ajiibo dacwad uu u soo diray boqorkii Faransiiska koowaad wuxuuna ku dhex geeriyooday Leonardo da Vinci dalka Faransa inta uusan aadan Talyaaniga uu gacanta ka saarin looxa Francesco. haddaba tilmaamaha uu leeyahay looxa Mona Lisa looxu waxa uu tusaale ka bixinayaa haweeney ku fadhida kursida qayb ka mid ah oo ay wajiga iyo laabta u jeeysan yihiin kan soo eegaya ee fiirinaya sawirka. waxa uu Leonardo da Vinci u hidisay sawirka qaab haramka oo kala ah waxaana arkaysaa in gacmaha mid ka mid ah ay uskanayso gacanta midig ee kursiga ayadoo laga cabir qaadanayo masaafooyin nidaamsan ee u dhaxeeya. waxa uu hal abuuray Leonardo qaab cusub oo uu sawiray waxa uu ka yeelay isha eegaha sawirka iyo Mona Lisa inay toos isu qabanayaan qaabkan oo ahaa mid aan hore loo arag waayo farshaxamaystayaashii hore waxa ay yeeli jireen inay xabadka labada garab ay simi jireen. muuqaalada ka gadaaleeya sawirka wuxuu koobayaa webiyo buuro la sawiray xilli jawigu kacsan yahay dabayl badanna jirto isagoo u isticmaalaya rinjiyo la isku daray oo aan xadidnayn si ay u muujiso daliigaha sawirka ka muuqanaya. haddaba dharku uu hoon yahay looxa Mona Lisa haddii ciwaaro laga bixiyo waa cambuur cagaaran oo horayda mid jaale iyo mid madow oo isku dheesan ah. galabka bidix waxaa ka muuqda korkaridad booroborow ah. sidoo kale Leonardo sawirka dunya uma yeelin isagoo raacaya qaabkii waaga u albaxsanaa ee sawirada loo sawiri jiray. haddaba sicirka uu suuqa ka joogo farshaxankan waxa uu gaarayaa malaayiin dollar iyo ka badan. anigu iyo adigu ma awoodno inaan malaayiin dollar ka bixino. muusawga Mona Lisa iyo sirta ku jira ayaa ah in markii uu sawirayay Leonardo da Vinci sawirka uu soo kireystay badadaaliye si uu uga yeero inay muusawdo gabadha uu sawirayo waxaana laga dheehan karaa muusawga isla cajabsanaan. muuqaalkeena maanta intaan ka ogyahay. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.